كاغسدارنا wuxuu qorsheenayaa madaxweynuhu in uu qabto Palestine iyo sabax ballaaran uu qabto gobolka Florida dalka Mareykanka soo noqotay madaxweynaha ayaa si weyn u inuu arrimahaasi qayb ka noqdo halka dagala socda wararka waa dunida oo dhan ka Azerbaijan وكو اسكو قنو دوون استمركان دغالك dagaalku wali uu sii socday isla markaana marba ka dambaysa dagaalku wuxuu eegay mid faraha looga gubanay wararkii ugu dambeeyay ka imaanaya aagaga colaadu ka jirtay ayaa sheegay ciidanka Azari ay ku dhawaaqeen in qabsadeen magaalada markaas ka dagaal ayaa koonfurta dhinaca waqooyiga ciidankii Armenia ay sax ku jabay isla markaana magaalada caasimada ay u harsan tahay haddana waxay ciidanku sheegeen inay horumar ballaaran ay ka sameeyeen magaalada kadib markii hareereeyeen wasaaradda gaashaandhigga Syria waxay sheegtay in dagaalku uu noqon doono mid laga xoreeyo aagaga waxay ku safeeyeen dhammaan maleeshiyada ay sheegeen in ay juqjuqaynayaan arrinta labadooda wasiir arrimadeed oo u muuqda in miis aad u kala fool markaan dhex fadhiyo wasiirka dalka Russia Lavrov ayaa isugu yeeray magaalada Moscow waxaana halka laga rajeenayaa in xabad joojin kumeel gaar la soo saaro dhinacyadu waxay sheegeen in ay xabad ay tahay lama huraan in la gaaro xabad joojin sheegay Lavrov oo sheegay in Ruushku uu doonayo xabad looga faa'iideysto in gargaar adeennimo la gaarsiiyo dadka ku barakacay iyo in sidoo kale laga qayb qaato wuxuu ku sifeeyay in la wadaarsiyo midadka la kaxaysto sifaan noqotay madaxweynaha dalka Azerbaijan inta dowladda Armenia ay ka baxso gobolka Soomaaliya ay qiranayso inaysan dhulkaasi wax ku lahayn ama aysan dhulka haba yaraatay wax shaqo ay shaqo ku lahayn gobolka la hadlay ayaa uu sheegay muhiimadda gobolka Nagorno-Karabakh wuxuu Nagorno-Karabakh ahaanba waa inaan bisle isla markaana waa inaan gacmo ku qabsanaa ama aan nabad ku helnaa waayo wuxuu ciidanka ma jooji karaan inay isqitaanka isagoo magaalada Baku ay xarun dalka ka hadlayay wadada Karooy Moscow Armenia ay ka toobad keento waxa uu ku sifeeyay sheegasho baxalnimo oo soo doonsood haysatay amniga gobolkaas dalka Syria ama Azerbaijan ayaa mar walba waxa uu dowladaha adduunka sheegay in soddon sanadooda ay ka sugayeen in nabadgelyohaas ka dhacdo oo inta ay tuugayeen in laba diyaaradood ay ku
ayaa idin hayaa daawashana arrimaha farka Pakistan waxa uu ka mid noqday aalad TikTok loo yaqaan soo farba ku haysa dhaqanka nolosha iyo kasbiga ee ummadaha ayuu hore kuwa kale dhinaca akhlaaqiyadka iyo dowladda dalka Pakistan waxa uu maamushay iskaasiinta loo yaqaan Pakistan Telecommunication Authority PTA in ay gebi ahaanba laashay isticmaalka mancuudayna ayaa TikTok فسق iyo waxyaalaha lagu faafiyo dalka caalam islaami kuuda ugu waaweyn gaar ahaan ay ka jiraan ururo waaweyn markay noqoto lagu dabaqo dhaqanka dadka in dhalinyarada waxyaalaha foosha kuwaas marka soo bandhiga waxaan tilmaameen wax niyad dil ah soo saarista barnaamijkan oo cadaadis xooggan u ka haystay dalalka Hindiya, Australia iyo dalka Mareykanka. Hindiya ayaa gorsii horeysay iyadoo noqday laakiin Hindiya waxay taas uga jeeday waxay ku safaysay arrimo dhinaca dhaqaalaha oo shirkadda degan dalkaasi Shiinaha ee leedahay ByteDance ayaa iska leh barnaamijkan laakiin dalalka Australia iyo Mareykanka aga dhaqanka maaha ee wax xagga siyaasadda iyaguna waxayna diidayaan ayaa la yiri in ay xogaha dadka gaarka loo leeyahay qaataan ama ay xogta kalana waxda loo yaqaano Pakistan Electronic ayaa la asixiyay sanadkii 2010 soo raacay internet waxyeello ku noqonaya bulshada iyo dhaqankeeda markay tahay balse qiimaha leh wararka waa aan dhacay daawashada qiimaha leh sidoo kale dadka Soomaalida ee dhalinyarada runtii TikTok aad u isticmaala Soomaalida badankoodu waxa waxyaalo qalbiga la doonin waxaana muhiim ah arrintaas in shirkadaha isgaarsiinta ka galaan oo ay ugu yaraan baartay wala qaadaan ama shirkaddan TikTok hadda cadaadis xooggan bahaysta wayna soo joogsanaysaa hadii loo soo oo maartay maadaama adduunka oo hadda uu mamnuucayaan oo waxyaalo dhinaca markaas waxyaalaha xumaan faafinaysa loo hortago bulshada